الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله ليال reer Hargeysa guud ahaan dhammaan shacbiga Soomaaliland iyo gobolka Maroodi Jeexba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal isu soo bixiinen baaxadda weyn waxa uu ka turjumayaa in shacbiga reer Hargeysa iyo shacbiga Soomaaliland maanta ay doonayaan isbeddel oo ay isbeddel doon yihiin walaalayaal reer Hargeysow Somalilandow waxaad taagan tihiin milic laakiin milicda kulul waxa ka sii kulul himilada aan higsanayno ee maanta u taagannahay ee dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan yihiin oo ah isbeddel walaalayaal jamaahiirta soo baxday maanta ee isugu soo baxday gobollada aan tegay oo dhamme ee milicda daalka u adkaysatay ee isbeddel doonka ahi ee sinaan doonka ahi ee samaan doonka ahi waxay dirayaan farriinta cidda maqlaysaa way maqashay cidda aan doonayn inay maqashana 13 Noofambar kadib bay maqli doontaa haddii Ilaahay ka dhigo sow sidaas ma aha walaalayaal 20 maalmood ka hor ayaan bilownay ololaha doorashada madaxtooyada waxaa caddaatay inaad muujiseen dareenkiinna rabitaankiinna oo ah in isbeddel yimaado Somaliland khariidadeeda waxaa ka muuqday meel kastoo la furay iyo TV kastoo la furay calamada liimiga ah iyo calaamadaha liimiga ah ee isbeddel doonka walaalayaal kolkaan ka qiyaas raaco isu soo bixinin halkii taagan oo kaa mid la mid uu ka jiro maanta gobolka Awdal gobolka Saaxil gobolka Togdheer gobolka Sool iyo gobolka Sanaag xaqiiqadu waxay tahay in shacbigu uu doonayo in kulmiye la bedelo soo sidaas maaha waxaa caddaatay inaan shacbigu qaybsanayn oo aanu ahayn waarso iyo naato inaanu ahayn jeegaan ee uu yahay shacbi midaysan sow sidaas ma aha waa shacbi ku midaysan dareenkiisa waa shacbi giraan ah oo aan jeegaan ahayn sow sidaas ma aha walaalayaal waxaa xusid mudan go'aanka dhammaan gobollada darafyada Somaliland ee aanu soo aragnay ee Sool ka jiray ee Sanaag ka jiray ee Awdal ka jiray ummadaan qaybsanayn baanu soo aragnay ummadaasina hal wax bay ku midaysan tahay beddeluu waxay ku midaysan tahay beddeluu waxay ku midaysan tahay beddeluu maanta Somaliland waxaa haysta 3 duruufood 3 mashkiladood oo mid siyaasi ah mid dhaqaale iyo mid dabiici ah meel kasta oo aan maray iyo cid kasta oo la kulmay dhibaatadoodu intaasay ku koobnay walaalayaal xisbiga kulmiye fursad baynu siinay mashkiladaha la sheegayo waxuu ka qabtay mise wuu la daray xisbiga kulmiye waa ka bare xisbiga kulmiye waa ka bare mashkiladii wuu la daray haba ka muqaban miyu kulmiye waxa uu leeyahay waddanku xukuumad adag oo dhibaatooyinka ka jira ka saarta ayuu u baahan yahay laakiin waxaanu fahamsanayn inay iyagu mashkiladda abuureen mashkiladda yaa abuuray sicir bararka yaa abuuray hantidii yaa iibiyey
بدوين كلا نختاركي إذا نختار بدوين كلا ولا الله يا حسبي وطني وحول حال دم الدنيا مسوق ماسرة بوب كهنتنا ومضى قبيالته غرام كيلك ديما بالك العقدة معيشته سياد كاريسة شغلان تضلين رضا أبارها باسن إسوء بدنيا وشهر الله سمعينين يجي هينك قضية السومالي اللي إيام بطي والله ليال في الشغلات صدق فرها بدل لو قالوا وحلقة مارمانا إن عدكينا سيسان حسبي وطني ما سيسان عدكينا ما سيسان دولة نمدا وحينو سمي السمي إنaynu ku abuurno nolol horumar wadareed sicir bararkuna wuxuu cadow u yahay nolosha dadka gaar ahaan danyarta iyo hiigsiga horumarka waa faqaran oo asinaba wadani ugu dulqaadan doonin haddii alla yidhaahdo xisbiga wadani marka uu qabto xukuumaddiisa waxa uu samayn doonaa hay-ad la socota kororka qiimaha maciishada waa hay-ad dawladeed oo bil kasta cabir rasmi ka samayn doonta qaaliyowga guud ahaan badeecadaha iyo nolosha waa qaranka siin doonta xog rasmi ah oo bilaa saddex bilaa iyo sabandaa dawladdu ma ogolaan doonto qaaliyowga in ka badan 2%. waxaanu dhibi doonaa cashuuraha laga qaado cuntooyinka iyo agabka asaasiga waxaanu kordhin doonaa cashuuraha laga qaado agabka aan asaasiga ahayn ee sigaarku ka mid yahay ee qaadku ka mid yahay iyo waxyaabaha halista geliya caafimaadka dadka walaalayaal niyu kulmiye iyo Faysal Cali Waraabe oo usbuucyadan buuq weyn iyo sawaxan sameynayay waxay awoodi waayeen inay soo bandhigaan hal macquul ah oo ku saabsan duruufaha dalka ka taagan iyo barnaamijkooda lagu dooranayo taa beddelkeeda waxay waqti badan ku bixiyeen been abuur ku saabsan xisbiga wadani shacbiguse uu ka qaadan waayay soo kamayna qaadan waayeen Soomaaliya ayaa laydiin wadaa wadani lacag malaayiin dollar ah iyo jeegagaya la siiyay wadani ayaa UN-ta waraaqa u qoray iyo waxyaalo kale oo ciida ka badan oo been abuur ah waa kulmiyaha cusub malaha waxay moogan yihiin oo ay ka dhowhan yihiin in go'aanka go'aan shacbiga Soomaaliland uu yahay go'aan shacbi oo aan kulmiyana bedeli karin wadanina bedeli karin qofna bedeli karin kooxna bedeli karin waxaan leeyahay xamar lagu tartami maayo hargeysa lagu tartamaya hargeysa Soomaaliland baa lagu tartamaya waxa ka iibiyaysan shacbiga u soo bandhiga waxaan leeyahay arrimahaasi waa garaadkooda waa garaadka muuse aniga iyo xisbigayga toona walaalayaal aniga iyo xisbiga wadani midna ma aaminsana in reer ama koox Soomaaliland u shaqaysto Soomaaliya waase muuse iyo garaadkii xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay in shacbiga reer Soomaaliland yihiin dad walaalo ah oo leh xuquuq siman ma jiri karto in la yiraahdo beel baa beel loo bariyay miyay dhici kartaa ama qof baa qof loo bariyay waxaynu doonaynaa in la abuuro shacbi siman oo u siman dhammaan awoodaha dalka xilalka dalka iyo khayraadka dalka anigu waxaan leeyahay walaalayaal wixii aad samayn karayseen oo dhan waa samayseen laakiin dooni degaysa ma badbaadin kartaan ee wax ku qaata dareenka shacbiga walaalayaal waxaan baa u dirayaa niyu kulmiye iyo Faysal
وأنا أقول يا حتى إذا ترتبط كلامي ليش كده أسمع والله يا حسبي وطني بلغاديسا وحكمنا كو قال كميدا ما شيء هو شيء كرو إنه حالة قلسن أي كسبيه إذا ما ذكرك شغل هذا إنه هيان وحسبي وطني بلغادي كان نبين يا إن شاء الله إنه شهادة عيد مضى بقول كي الله بقول يكون تلوفني وحسبي وطني بلان قاضية إن عسكري كستوه يلورد السهدي لهاي كلمة حسبي وطني بلان قاضية إنه أبو حفيظ كحفصيتا إذا مضى عسكري كشغاكو لترى حقوق رعانا على الطريق إحوال وصية شغالها الدولة حزبي وطني وحابوريا حفيظك هولقبك شغالها الدولة مركا وقف قبوله وعلى سينه حقوق قف شغالها حكومة وطني وحي مشاهدة وكل نيسا نمان شغالها معلمين تا يعرش ما دام معروف انه صار رمضان حزبي وطني وحاوريا هيدا كورتك عبارة حزبي وطني بين أول كلها نجيسنا وحصول وينيا ما لقاش عالم قال إيش شيئها هي دمان مشاريع ده صفة شرعية كبحي أما الله وقال هذا دنا كلا حزبي وطني هانتيك استوى غران كان لها هو صفة شرعية دراها كبحضي قاعد الشعب قال وسوا عنده أنه شغلان تباسل كسر النظيرة السومالي الآن مدحلات كوريش أنت السنة حزبي وطني وهاوريا شنية طبعا كن أشهر وهندشيني ورشوا على قبل يسعر بركة لو نكم عنا يرقالها لو ندي فكرين يمال قشي سيدنا كشيء خطبة يدي هره بيلان تهرجيسا وندوينا وبيكفلا ما نعاصمة كيرين سوماليلاند وحانو عطينا إن أنا مسلمان سنلا دجال ما إنه سيدو قال معانا هدي لا يكمل أمني قرنك وحانو أذكين دونا أمني قرنك جمهورية سوماليلاند أمني قرنك سوماليلاند من نقرقرت المجلي كرو ضلالك عينو دريس كنهاي waxaanu kula noolaan doonaa nabad iyo daris wanaag waxaan uga digaynaa inay farageliyaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ama ay ku kacaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta amniga iyo jiritaanka Soomaaliland dardaaran walaalayaal شعبك سوماليلاند اسبدل دونك اهو الى يدردارا ayaan idin sii odhanaya maalintii aynu u soconay waxay nooga hadhay 48 saacadood walaalayaal waxaan dadka reer Soomaaliland marti uga ahay oo idin weydiisanaynaa annagoo ka turjumayna rabitaanka shacbiga Soomaaliland إن العدكينا السيسان أو السيسان وطني أو السيسان اسبدلدون وحلو بهاي إن الصفاف كطور الشدة هراء قال له هدي لايك الدقو وحلو بهاي
inay noqonno codbixin sharaf leh oo Somaliland magac u keenta waxaan dhammaantiin nahay dad walaalaa oo isku mid ah waxaan ku baaqayaa inaynu amniga ilaalinno ciidanka ammaankana aynu gacan siino walaalayaal waxaan ku soo khatimayaa tuxuu tiriyey timacadde wuxuu yidhi ilaahin ka yaaboo indha yeesha walaal aynu ka fiirsanno codkeenna aynu isbeddelka siinno yaanay naga khaldamin xisaabtu walaalayaal maanta waxaan joognaa xilligii iyo xaaladdii aynu tuuri lahayn heeryada qabiilka iyo kala qaybsanaanta una midoobi lahayn danaha iyo mustaqbalka Somaliland walaalayaal taa diyaar ma u nahay taas gacan ma igu siinaysaan aniguna ilaahay waxaan u ballan qaadayaa inaan tubtaas idinku hoggaamiyo allaahumma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك ولا ليال ugu dambayn laba eray baan halka ka odhanayaa mid waa cafis iyo saamaxaad aan u samaynayo ama siinayo dhallinyaradii la soo khalday ee gurigayga soo weerartay waxaan ka codsanayaa dhallinyaradaa la khalday ee aan dembiga iyagu lahayn ee dembiga faraha loo geliyey in ciidanka ammaanku saamaxo oo guryahoodii la geeyo oo waalidkoodii loo celiyo waxaan kale ka dardaarmayaa falkii shalay ku kacay kulmiye ee uu ku abuuray xasilooni darrada iyo amni darrada inaynan ku dayan kulmiye taana waan ka dardaarmaya waxaan ammaan buuxda u soo jeedinayaa ciidamada ammaanka Somaliland ciidamada booliska Somaliland ciidamada qaranka ciidamada asluubta iyo ciidamada kale ee Somaliland siday u sugeen ammaanka iyo nabadgelyada waxaan ku boorinayaa xilliga doorashadana inay ka taxadiraan oo si wanaagsan ammaanka u sugaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan kula dardaarmayaa inaynu gacan buuxda siino ciidamada amniga waxaan ku soo gabagabaynayaa ballanteennu waa beddeluu kulmiye beddeluu 13 Noofambar beddeluu Somaliland ha guulaysato Somaliland ha guulaysato isbeddelku ha guulaysto ilaahay mid khayr qaba ha inooga dhigo kulmiye u bye bye